subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. waa aroor khamiis ah oo bisha Febraayo ee tahay 11 sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo ayadoo ay idinla socodsiin doonaan barnaamijkeenan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah bulshada rayidka ee Muqdisho oo baaq u diray dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda isku khilaafsan. dumarka Soomaaliyeed hadaan nahay walaac baa inoo muuqda waxay inoo muuqda dadkii mas'uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboona inay mas'uuliyadda noo qaadan dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga waliba maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxa la rabay in la isku tanaasulo waxaan sidoo kale idiin haynaa dilalka ku soo badanaya magaalada Kismaayo iyo maamulka oo ka hadlay. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ka hadlaysa dhalinyarada fursadaha shaqo ka hela dalka Australia. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Mursal. dacwadoogayaasha dacwadda maamuska xayuubinta Donald Trump ee golaha sanadka ee Mareykanka hortaala ayaa bilaabay Arbacadii inay soo bandhigaan eedda ka dhanka ah madaxweynihii hore. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in Trump uusan beri ka ahayn rabshadihii ka dhacay xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka bishii lasoo dhaafay markaas oo golaha ay u fadhiyeen ansixinta guushii madaxweyne Joe Biden uu ka gaaray doorashadii dhacday 3 November ee sanadkii hore. Jamie Raskin oo ka tirsan aqalka hoose oo hogaaminaya dacwadda maamuska xayuubinta iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in Trump uu gogol xaar u sameynayay weerarkii lagu qaaday xarunta Koongareeska muddo toddobaadyo ah oo ay socdeen doorashooyinka iyadoo ay jireen dirsano sheegashooyin ah oo aan raad lahayn oo uu ku sheegtay in sida keliya ay looga adkaan karo ay ahayd doorashada oo laga been abuuro. Raskin ayaa ku dooday in Trump uu ku buuriyay boqolaal taageerayaashiisa ah inay si adag u dagaalamaan marka ay xubnaha Koongareeska kaga hortagayaan dhismaha ay ku shirayeen 6 Janaayo wuxuuna kiciyay shaqaaqo ay ku dhinteen 5 ruux oo uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa booliska caasimadda. wuxuu intaa ku daray in boqolka xildhibaan ee aqalka sanadka ay go'aamin doonaan haddii Trump lagu xukumayo hal mid oo ka mid ah dacwadda maamuska xayuubinta ay ka soo gudbiyeen aqalka hoose ee Koongareeska taasoo ah kicin bulsho. dimuqraadiyiinta ayaa intii ay socotay dacwadda soo bandhigay cajalad muuqaal ah oo ay ku duubnaayeen rabshadihii ka dhacay 6 Janaayo aqalka Koongareeska. qareenada difaacaya Trump ayaa ku dooday in aqalka hoose uusan sifo waafaqsan sharciga u marin qaadidda dacwadda maamuska xayuubinta ee lagu soo ogay madaxweynihii hore. dowladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay hogaamiyaasha militariga ee afgambiga ku qabsaday xukunka dalka Myanmar. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii mar kale ku dhawaaqay in militariga ay ka tanaasulaan awoodda ay la wareegeen isla markaana ay ixtiraamaan dimuqraadiyadda iyo doorka dadka ay ku muujiyeen doorashadii dhacday 8 November ee sanadkii hore. dowladda Mareykanka uu hogaamiyo Joe Biden ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ay kaga hortagayso in generaalada ciidamada ay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaan lacag 1 bilyan ah oo dowladda Burma u taala Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale amar madaxweyne ku meelmariyay in cunaqabatayn degdeg ah la saaro hogaamiyaasha militariga ee afgambiga dhaliyay ganacsiyadooda iyo xubnaha qoysaskooda. militariga Myanmar ayaa 1 bishan afgambi ku qabsaday xukunka iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ay ku soo rogeen waxayna xabsiga dhigeen hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi iyo ku-xigeenkeeda. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ah. iyadoo weli khilaaf adag uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiska doorasho Soomaaliya ee la gaaray 17 bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa haddana waxaa dad badan oo ku sugan gudaha dalka arrinkaasi ay ku haysaa walaac xoogan. hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka baqdin qaba in khilaafyada siyaasadeed ay horseedi karaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelata
noloshoodii waxayna ugu baaqeen dhinacyada ishaya in ay xal la yimaadaan ayna isu talaasulaan sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow. suuqan oo ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ganacsigiisa lafdhabar u ah dumar. nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa. in dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniga kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya. 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sukeeye waxay hooyooyinkan Soomaaliyeed dusha u riteen mas'uuliyadda qoysaskooda. hadda oo Soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiilayahayna waxa ay qabaan walwal xoog leh sida ay VOA-da u sheegtay Maryan Taqal oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda SWDC. waqti la ballamay jiray waqtigii la ballamayna waa la dhaafay. doorasho maanta astaysan oo maalin hibaane ma haysano. saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa. dumarkana maahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan sida dadka aan ama disbalka loo yaqaan ama aan dadka dhibaatada gaarka ah qabo, dumarka, caruurta, dhalinyaradan xaabada laga dhigtay dabka lagu shidaayo ee la leeyahay soo orda iyo dagaal la idin gelina iyo kanaan la suubina. waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa dumarka haddaan nahay meel weyn. dumarka oo matalaad siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira. waxaana ay soo jeedinayaan in mas'uuliyiinta go'aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka, dhalinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. sida ay noo sheegtay Kafiyana Leeyo oo ka mid ah aqoon-yahanka arrimaha dumarka u ololeeya. dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay walaac baa inoo muuqda. waxaa inoo muuqda dadkii mas'uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboonaa inay mas'uuliyadda noo qaadan. dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga waliba maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabaa in la isku tanaasulo. tanaasulaadku waa halka kaliya xal ee ummad lagu badbaadiyo. qofku markuu madax yahana waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo, ma aha inuu asagu wixii asaga uu rabo u fiiriyo. Taqal oo ka tirsan hay'adda horumarinta haweenka ee SWDC ayaa VOA Soomaali u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sukeeye mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto. anaga haween Soomaaliyeedana nabadaan rabnaa, dalka wanaagiisaan rabnaa, maamul iyo nidaamaan rabnaa. qof nooma calaameysna, waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taagana. ilaahay inuu noo suubiyo, ilaahay inuu nooga dhigo mid cadaaladda ka shaqaynayo oo ummadda way cadaalad falaayo, in ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda Soomaaliyeed mid ay isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hoggaansamayna aan ahayn qabiil ma rabno. midna ku taageerimayna qabiil. qofka qabiil aaminsan iimaanka Allah geliyaa leen. qaar ka mid ah dumarkan ayaa u arkay in hablaha ku jira baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas'uuliyiintan ishaya, maadaama ay u arkaan in qaar ka mid ah mas'uuliyiintii loo igmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la yihiin. marka nabadda inta la haysto doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda jaanis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan. waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda ee doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo. waxa la badbaadinayo waxaa waaye nation, ma ahan dad. wadan dhan baa masiirkiisii wuxuu dhinac u leecayaa. Soomaaliya waxaa hadda dhammaaday waqtigii hay'adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka iyadoo aan la ogeyn goorta wadanka uu doorasho galayo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho. xilli maalmihii u dambeeyey ay magaalada Kismaayo ka dhaceen dilal iyo qaraxyo kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada magaalada ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka degmada Kismaayo kuwaas oo sheegay inay socdaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo islamarkaana ay wadaan baaritaano la xiriira kooxaha geysanaya falalka amni darrada. Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo ayaa waxa uu arrimahaasi uga warramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaab. haddii aan warbixin guud kaasiyo ammaanka magaalada Kismaayo, ammaanka aad buu u fiican yahay insha Allah. maamulka
degmada Kismaayo anigoo ka mas'uula xagga amniga waxaa jira howlgallo badan iyo wareegyo badan oo habeenkii magaalada Kismaayo lagu sameeyo iyo jagboontiyo badan oo magaalada oo gudaha meelaha laga soo galay yaala iyo howlgallo badan oo magaalada gudaheeda ah habeenkii iyo maalintii saas oo lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo insha Allah ta'ala sida ay dad badan la socdaan ama dadka reer Kismaayo ay arkeen ama ay ogyihiin hadii la gaaro fiidkii halka saac wixii ka dambeeya waxaa socda roondooyin oo jagboontiyada taagan oo isgoysyada taagan oo meel kasta iyo xaafad kasta taagan ee ka shaqeynaya amniga waxaa kaloo jira guddi amni oo habeenkii oo saraakiil ah oo haweenkii shaqeeya oo wareega magaalada oo dhan ku wareega oo ciidamada kormeera subaxdiina insha Allah ta'ala markii ay howlgalkooda soo dhameystaan subaxdiina gudiga amniga qaranka ee heer state ee warbixin siiya ay ku wada kulmaan warbixintii habeenkii ay soo qabteen wixii haweenkii soo arkeen ay ka sheekaystaan insha Allah ta'ala amaanka guud sidaas waaye gudoomiye waxaad sheegtay gudoomiye ku-xigeen in amaanka magaalada guud ahaan uu fiican yahay haddana 48 saac aynu soo dhaafnay waxaa magaalada ka dhacay dilal iyo sidoo kale qarxayaa ka dhacay marka see amniga magaalada aad ku xaqiijisan wanaagsan iyadoo arrimahaas oo dhan ay dhaceen waxaas adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax jira waaye meelaha ugu amni badan ee adduunka waxyaabo noocaas oo kale ka dhacaan waa dhif iyo naadir markay dhacaan waa la daba joogay waa la soo qabtay wixii la soo qabtana insha Allah ta'ala waxa la soo saari doonaa maxkamad oo waa xiran yihiin inta kale waa lagu raadjoogaa waxyaabaha iska dhacdhaca guud ahaan Soomaaliya ayaan la midnahay gaar ahaan laakiin annagu Soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inaan magaalada Kismaayo ka maamul goboleed Jubbaland aan ahaan inaan aad iyo aad xagga amniga ugu fiicanahay moodaa waa naadir mar iyo dhif wax dhaca waxaas oo dhan adduunka waxaas ka jiraan waxaasna wax oo hadda ammaanka hadda khalkhal galiya ama ammaanka wax looga dhimayo ma aha waanu ku raadjoona wax alla wixii aragnana waa la soo qabtaa insha Allah xabsiyada la geeyaa kadibna maxkamadaha jira oo la soo saara marka waxaas wax sida hadda loo boonbooniyo ama wax saa weyn ma aha insha Allah ta'ala bilihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ku soo kordhay qaraxyadan guryaha daaqadaha loogu xiraayo baabuurta lagu dhijinayo ilaa iyo hadda hay'adaha amniga waxay soo qabteen maadaama gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo waa jiraan waxaas oo daaqadaha lagu dhijiyay oo mar iyo laba ah waana la soo qabtay inta badan xabsiyada ayayna ku jiraan insha Allah ta'ala waxaan la horkeeni doonaa cadaaladda insha Allah ta'ala maxkamadaha la horkeeni doonaa cadaaladdan lagu marsiin doonaa waxaasna wax weyn ma aha waa sanadkii ama labadii sano hal mar wax dhaca guud ahaan Soomaaliya wax ka dhaca arkaysan iyo adduunka intiisa kale marka waxaas wax weyn ma aha insha Allah ta'ala wixii dhacayna waa la soo qabtay qaarna waa lagu raadjoogaa qaarna waa la soo qabtay xabsiyada yaali insha Allah ta'ala maxkamadaha la soo taagi doonaa waa tahay marka taa laga tago gudoomiye ku-xigeen waxa jirto howlgallo ciidamadu ay sameeyaan ilaa iyo haddana ma aragno shakhsiyaad lagu soo qabtay howlgalladaasi ama hadday ahaan lahayd dadkii dilka geystay shalay u dambaysay nin baa magaalada lagu dilay marka ma la soo qabta dadkaas oo kale maxaad ka yeelaysaa dadka waa la raadiyaa waana la soo qabtaa howlgalladaas waa jiraan waana la soo qabtaa marna ka dhankaas oo kale waa dhinaca amniga waaye wixii amni ahna insha Allah ta'ala wixii la soo qabtana waxa la geeyaa xabsiyada markii la geeyay howlahoodii barsooskoodii la dhameeyana maxkamada ayaa la soo saari doona insha Allah ta'ala howlaha amnigana insha Allah ta'ala dadweynaha sida guud dhammaantood dadweynahoo dhan in loo soo bandhigo ama loo sheego ma qolooyinkii shaqada ku lahayd ayaa hawsha faraha kula jirta oo hawsha wax ka qabanaysa oo wada qaraxyadan iyo dhibaatooyinka magaalada ka dhacaya yaa ka mas'uul ah isladahay qolooyinkan kulliiba nabadiidka ayaa ka mas'uula qaraxyada dhaca insha Allah ta'ala kulliiba Soomaaliya oo dhan waxaas oo dhan ka dhacaan marka insha Allah waxaana waa iska dhamaan doonaa insha Allah ta'ala ugu dambeyntii marka Kismaayo oo bariga hore amnigeeda la isku haleyn jiray hadda misleedahay amnigeedu wuu xumaaday maya ma islihi amnigeedu waa xumaaday malihi amnigeedu waa fiican yahay 100% waa darataan magaalada waa habeenkii oo dhan la socdaa maqaayadaha furan biibatooyinka waa la cawiyaa gawaarida socota ma islihi amnigeedu waa xumaaday amnigeedu aad iyo aad u fiican yahay waa sidiisii isi ka fiican waliba kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo wuxuu u waramayay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo oo ay adag tahay in si sahlan lagu dego Australia haddana waxaa u furan inay si fudud ku degaan dadka aqoonta leh ee xirfadleyda ah wadankay doonaan ha ka soo jeedaan sida Soomaaliya dhalinyaro badan oo tahriib ku yimaada wadankaasi ayaa weli ku xiran waaxyaha socdaalka Australiana ay u dideen inay siiyaan
sharciyadii wadankaasi halka kuwo kaleeta oo wadankaasi ku galay si sharci buuxa ahna lagu siiyey aqoonta sida injineer maxamed cabdiraxmaan aqoonta uu haysto kaasi oo kasoo galay wadamada imaaraadka carabta dalkaasi Australia. haddaba wariyaha VOA da Ibraahim Cumar Baafo ayaa la kulmay injineer maxamed warbixintan gaarka ahna ku eegaya. injineer maxamed cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida dalkan Australia qaab aqooneed ku soo degay isagoon qaxootinimo iyo tahriib midkoodna soo wajahin. waxaana uu hadda madax ka yahay mashruuca injineeriyada shirkad uu shaqeeyo. Australia waxaa soo galay September 2018 waxaa ku soo galnay visa oo sharci oo la dhaho permanent residency oo dadka oo aqoonta leh loogu talagalay in sharcigaas la siiyo. waxaa la dhahaa subclass 190. aniga waxaa bartay civil engineering, bachelor civil engineering, masterna waxaa bartay engineering management. hadda waxaa u shaqeeyaa shirkad oo ka shaqeyso power station. marka aniga waxaa u shaqeeyaa project engineer baa u shaqeeyaa. waxa uu ku dhashay kuna barbaaray wadamada khaliijka isagoo halkaasi waxbarashadiisana ku dhammaystay. ani imaaraadka baa muxuu ahay muddo weyn ku noolaay. sacuudiga ku dhashtay. imaaraadkana dugsi sare kasoo bartay heer jaamacad kasoo baxay. bachelorka waxaa ku dhamay imaaraadka iyo masterka. markaasna waxaa dareemay nolosha imaaraadka inay waxyar dadka ku adkeeyeen, especially Soomaalida. dad baa la tashtay marka waxay ugu taliyeen wadamadan galbeedka dadka inay kusoo imaadaan skilled migration. marka waxaa ku galay aqoontaada baa ku galaysa. waxa uu ku soo safray baasaboorka Soomaaliga, isaga ayuuna dalkan weli ku degan yahay ilaa uu qaato dhalashada dalkan. aniga baasaboor Soomaaliya wadankan kusoo galay. waxa uu soo galay wadqana wadankan dadka laba dhinac ay u soo gali karaan. saddex dhinac ay u soo gali karaan. dhinaca koowaad waxaa waaye family na leedahay, guur ku imaatay, mise qof family sponsor amal ku siiyey. qaybka labaadna waxaa waaye humanitarian, waa refugee iyo Soomaalida ugu badan saas bay ku imaadeen muxuu ahay sida uu ogahay. qaybka saddexaadna waa skilled migration. marka qaybtaas saddexaad baa kusoo galay. haddana waxaa dareemaya magaaladan iyo Australia in general Soomaalida oo aqoonta badan, weliba dhinaca Malaysia bay ka imaadeen. dad badan, dhalinyaro badan oo wax bartay baa wadankan soo galay. marka dhinacaas sidaas baa kusoo galay wadanka. waxa uu aaminsan yahay aqoontu inay ka muhiimsan tahay baasaboorka. waqtiga aniga ku jirno aqoonta waa wax muhiim ah. baasaboor ay ka muhiimsan tahay. waa qofka dadka inay fahmaan waaye aqoontaada inay baasaboorka u tahay. yani aqoonta number 1, number 2 xooga waxaa saartaa luqada ingiliisiga. injineer maxamed cabdiraxmaan sidoo kale waxa aan weydiiyey, maadaama uu ku dhashay wadamada khaliijka gaar ahaan Sacuudiga, islamarkaana uu kusoo barbaaray dalka imaaraadka carabta, bal hadda inuu isbarbar dhigo nolosha dalkaasi imaaraadka iyo tan hadda uu degan yahay dalkan Australia. nolosha Australia iyo imaaraadka hadii laga hadlo waa laba dhinac la fiiriyo. dhinaca koowaad waxaa waa dhinaca dhaqaalaha iyo sida lacagta ku galaysa. meeshan of course baa ka sahalsan. dhinaca dhaqaalaha hadaa fiirisid iyo lacagta kusoo galaysa iyo standard of living haddii la arko. dhinaca kale waxaa waa diiniyan. aniga waa muslimiin baan ahay. marka dhinaca diiniyintani waxaa dareemaya imaaraadka inay ku fiican tahay. waa wadan muslim, anagana waa muslimiin. marka masaajidka waa kuu dhow yahay. salaada jumcada fasax baa leedahay. si fiican oo dukanay. ramadaanka dadkaa la soomay. ciidaha waxaa dadkaa la ciiday. waa fasax. meeshaan waxaa waaye waa wadan galbeed. mushkilada jaaliyada haasto waxaa waaye mushkilada oo diiniyada. yani masaajidka sidaa u tagaysa baa adaanka maqlaysid. Soomaali badan oo qaab tahriib wadankan kusoo galay ayaan weli helin sharciga dalkan, iyagoo weli ku jira xeryaha lagu hayo dadka sharci darada kusoo gala wadankan Australia. maxamed fariintan ayuu u hayaa kuwa ku taamaya inay soo tahriibaan. dhalinyarada waxaa rabaa inaa la wadaago nasiixada waxay tahay ha ku dadaalin inaad tahriibtid. ku dadaal inaad wax baratid, meel iska soo saartid. markaa wax baratid, haddaa xaraysatid viisa, haddaa u xaraysatid wadamada galbeedka hadda viisada hadday ku soo baxdo markaas si qaanuuni inaad usoo baxday kuu fiican. yani naftaada bay u fiican tahay. naftaada halis ma gelinaysid. si qaanuuni baa imaanaya. diyaaro baa raacaysaa. si illegal oo qaanuun ahayn si haddaa ku imaatid wadanka sharci ma lagu siinayo. waa taqaanaa dadka xabsiga hadda geliyaan 10 sano 8 sano dadaa xabsi ku jiro. laakiin qaabkan
qofka tacliinta leh ee waxbartay ee uu ku imaan karo dalkan Australia ayaa u furan bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ka mid tahay xitaa ma ay fiiriyaan dowladda Australia baasaboorka uu wato waxay eegaan oo keliya aqoonta qofka uu leeyahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. maamulka Jubbaland ayaa dhawaantan sheegay inay biyo-la'aan xooggan haysato dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo. Waqtigan la joogo shirkadda Jubba oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee magaalada Kismaayo ayaa wada biyo-gelin xooggan oo magaalada laga bilaabay. Ku dhawaad 5,000 oo guri oo magaalada ay sheegeen maamulka shirkadaasi inay biyo geliyeen. Saare Cabdi Axmed ayaa waxaa uga waramay Faysal Cabdulqaadir biyo-gelinta ay sameynayaan iyo sida ay rabaan inay u daboolaan baahida. waa inta shirkadda hadda shaqada bilowday tirada biyaha guryaha aan gelinay waa 4,700 oo guri iyo waxaan kaloo samaynay ilaa 10 branch ama 10 meelood oo dadka danyartii ay ka dhaansan karaan. waa gartay marka ku dhawaad 5,000 oo guri ayaad geliseen magaalada aad ayay u fiday guryaha way tiro badan yihiin marka ma isleedihiin baahida biyo la'aanta waayadan lasoo sheegayo waa dabooli kartiin? walaalay waa run biyo magaalada way fiday laakiin shirkaddu way u haysaa biyo ku filan qorshayaasha degsan ee qaabka magaalada biyaha loo gelinin waa si ku filan. shirkaddu waxay samaysay ilaa kaydad biyaha oo ilaa 3 milyan oo litir qaada oo magaalada dusheeda ah kuwaasoo ku filan magaalada dhan biyaha siin kara. biyahana hadda waxay gaareen ilaa meelaha magaalada ugu shaysa sida xaafadda cusbaada New Kismaayo ama Midnimo oo hadda biyo-gelintu ka socoto branchana loo sameeyey. marka waxaan aaminsanahay inaan hayno biyo ku filan magaalada oo ay kulli ku filaan karto. markii hore dadka ceelasha ayay magaalada ku tiirsaneyd oo guri walba ceel ayuu lahaa inta badan oo dadka ay biyaha ka dhaansan jireen. ceelashii cabitaankoodii biyihii magaalada ay ka cabaysay maxaa ku dhacay oo yareeyey? saa ogtahay magaalada waxay dhowr meelood biyo ka heli jirtay. inta badan horta ceelasha biyaha guryaha ku yaallay waa dhanaan oo maaha biyo aad loo cabi karo. magaaladu muddo yar waxay ku tiirsaneyd ceelal meel magaalada geeskeeda dalxiiska loo ka caba biyahaasi oo iyagana hadii un ceelal gacmeed lagu dhaamiyo iyagana aad u yaraaday. biyaha magaalada waxay ahayn biyo aad qaali u ah. annagu markay shirkaddan shaqada bilaabaysay biyaha waxaa la gedi jiray $6.5 mitir cubekii haddana waxaan gadnaa $2.5 soo qiyaasta faraqa u dhexeeya meelaha awal jeerigaankii 8,000 oo shilin la gedi jiray hadda waxaan gadnaa 2,000 oo shilin. soo marka laga reebo tirada iyo biyahan gelin waxaa kaloo aad isu dhimay qiimihii biyaha. waa gartay adigaaba qiimaha ka dhawaajisa waxaa jirta in dad danyaroo badan ay magaalada ku dhaqan yihiin dad sidoo kaleeto barakacayaal oo xeryo qaxooti ku nool marka kuwaasoo kaleeto laga yaaba inaysan heli karinba lacagta aad haatan ii sheegtay. meelaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin maxaad ku siyaadisaan? meelaha dadka danyarta ku dhaqan yihiin waxaan ka samaynay meelo ama branch waxa dadku yaqaanaan oo dadka danyarta ay biyaha ka dhaansadaan oo jeerigaankii la gado qiimaha ugu yar la gadi karo waa 2,000 oo shilin meeshii awal 8,000 oo shilin laga gadi jiray. waxaan isku dayna inaan u dhaweyno meelaha barakayaasha oo dhan aan geyno oo u samayno meelo ay ka dhaansan karaan agtooda. kaasi waxa uu ahaa Faysal Cabdulqaadir oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkad biyo-gelin ka bilowday magaalada Kismaayo oo u waramayay Saare Cabdi Axmed. dowladda Turkiga ayaa qorshe ay soo jeedisay oo ay ku sheegtay inaysan si buuxda u howlgelin doonin gantaaladii ay kasoo iibsatay Ruushka ee loo yaqaano S-400 oo u muuqda in ay fududayn doonaan in maamulka cusub ee Washington iyo Ankara ay isu soo dhawaadaan dhinacyada muranka iskhilaafka markii loo eego. wasiirka difaaca ee dalka Turkiga oo u waramay warbaahinta dalkiisa ayaa sheegay in ay doonayaan inay heshiiskaasi mid la mid ah uu Mareykanku la leeyahay Giriiga ee dhinaca difaaca ay yeeshaan. Athens iyo Washington ayaa heshiis gaaray arrimaha gantaaladana ka gaaray kadib markii uu Giriigu sanadkii 2017 sayruuqyada S-300 ka iibsaday. warbixintan ku saabsan arrimahaasi London waxaa ka soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. gantaaladan uu Turkigu ka iibsaday Ruushka haddii ay si buuxda u isticmaalaan ama tijaabiyaan maxay uga dhigan tahay Washington iyo Ankara waa su-aasha ay isweydiinayaan maamulka cusub ee Joe Biden
erdogan hore ayuu dhagaha uga xidhay washington laakiin waxay u muuqataa inay dowladdiisu soo dabacday. wasiirka difaaca turkiga ayaa sheegay in aanay weli go'aansan inay tijaabiyaan gantaaladaasi. waxa keliya ee aanu isticmaali doonaa ayuu yidhi haddii turkiga khatari la soo gudboonaato. dadka ka faallooda arrimaha turkiga qaar ka mid a ayaa aaminsan inay tani qayb ka tahay isbeddelka washington ka socda. waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee uu maraykanku u diidan yahay gantaaladan S-400? su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey guuleed axmed cabdi oo bartay arrimaha la xidhiidha ammaanka degana magaalada london. cabdixaafidow xiriirka maraykanka iyo turkigu muu ahayn mid meel saldhigta laga soo bilaabo afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay turki 2016 balse waxaa jirta xaalad kale oo ammaan oo lasoo diristay ururka nato iyo maraykan, taasoo ah in turkigu soo iibsaday lidka diyaaradaha ee loo yaqaano S-400 uu raashin ka soo iibsaday. carqalad weynna ku noqon doonta oo carqalad weyn ku ah diyaaradda kale ee maraykanku leeyahay ee loo yaqaano F-35 oo u sahlaysa raadaarka S-400 in ay sheegi karaan marka ay diyaaraddaasi hawada soo gasho. taasi waa taa. maraykanka iyo ururka nato waxay ka cabsi qabaan oo kale in turkigu uu siiyo xogta F-35 maadaama ay dalbadeen, walow imika ay maraykanku ka joojiyeen markii ay iibsadeen S-400 inay xogta siiyaan raasha. gantaalaha uu turkigu ka iibsaday ruushka ayaa ugu weynaa waxyaabaha ay maraykanka iyo turkigu isku maandaafsiisan yihiin, inkastoo ay dowladda Ankara ku celcelisay inay diyaar u tahay wadaxaajood. laakiin maamulka Joe Biden ilaa hadda uma ay jawaabin. wasiirka difaaca turkiga ayaa sheegay inay doonayaan in xogayaha guud ee ururka NATO uu qayb ka ahaado wadahadallo dhex mara labada dhinac. waxa ay u muuqataa in ay NATO soo dhaweysay qorshahan. washington ayaa marar badan ku celcelisay inay dhici karto inay Moscow ku hesho sir ku saabsan hubka maraykanka iyo difaaca ay NATO iyo iyagu isticmaalaan. turkiga gantaalaha S-400 haddii la tijaabiyo amaba ay galaan isticmaal. hase ahaatee Ankara ayaa sheegtay in aanay isku qaab u wada isticmaali doonin hubka NATO iyo gantaaladan. wax khatar ah haba yaraatee oo ay u keeni doonaan wasaaradaha difaaca ee maraykanka iyo yurubna aanay jirin. cabdixaafid cawil ismaaciil, VOA, London. markana dhinacii heesaha waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanadii codka baxsaneed ee baha u naxariiste Sahra Axmed Jaamac. idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. وأضمطي السكين